gudoomiyaha degmada Sheekh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiyo xogayaha dawladda hoose degmada Sheekh iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Sheekh ayaa maanta kormeer ku sameeyay dhismaha jaamacadda degmada Sheekh oo dhismaheedu si toos ah uga bilaabmay magaalada Sheekh oo ay gacanta ku hayso shirkadda dhismaha ee Waaberi Construction Company isla markaana loo xil saaray inay dhisto dhismaha jaamacaddaasi waxaan ugu horeyn dalkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay xogayaha dawladda hoose degmada Sheekh Cali Axmed xildhibaan Maxamed Siciid iyo xubno ku hadlaya afka waalidiinta degmada Sheekh bilaabidii jaamacaddii loogu talagalay degmada Sheekh oo jaamacad aad iyo aad u qiimo leh oo ay baahideedu Sheekh aad iyo aad ugu baahnayd ayaan maanta bilaabina madaxweynuhu ballan qaaday dhagaxna uu dhigay jaamacaddii uu madaxweynaha Musabbix Cabdi uu dhagax dhigay oo ka dhaqay Sheekh waxaanu doonaynaa maanta inaanu anagu halka ka dhaqaajino anagoo xildhibaanada degmada Sheekh saaka waxa dibada loo taagayaa ama asaaskeedii lagu jiraa asaaskii ugu horeeyay la jooga oo la xaaraya jaamacaddii degmada la dhigaya jaamacaddii degmada Sheekh waxay ahayd Mother of Education of Somalia maantana waxay noqonaysaa insha Allah bidmillaahi kariim Mother of Education of Somaliland jaamacaddii madaxweynuhu noo dhigay dadkuna uu oomanaa mid yar iyo mid weyn aan u oomanayn baa maanta jeexistii loo sameeyaa maarkuu noo furaya gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Sheekh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye oo u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha jaamacaddaasi sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu bagaadiyay madaxda shirkadda gacanta ku haysa dhismaha jaamacaddaasi wuxuuna baaqu diray gudoomiyuhu cid kasta oo u dhalatay degmada Sheekh iyo guud ahaanba Soomaaliland inay ka soo qayb qaataan dhismaha jaamacaddaasi jaamacaddaas waa tii madaxweynuhu dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay Musabbix Cabdi Sheekh waxaan rajaynayaa riyadii badneed muddada badan ee ilaa dugsiga dhexe 1945 markii laga dhisay dadka reer Sheekh ay ku soo riyoonayeen waxay ahayd inay jaamacad gaadho oo ilaa jaamacadda Sheekh yeelato waan ku hambalyeynaa amuudina jaamacadda mar hore samaysteen reer saaxilna waxaanu leenahay maanta ayay bilow idin tahay muhiimad loo qabaa waa mid aad iyo aad u ballaaran oo aan hadal iyo laba hadal iyo qoraal laga qoro toona aan lagu soo koobi karin waxa ka faa'iideysan doona jiilkii dhashay waxa ugu badnan jiilka imika dhalanaya reer saaxil dhammaantood gudaha iyo dibadda meel kala joogaan mid madaxa oo dawladdu shaqeeya mid baa ministeriiskii u shaqeysta shidaalka Soomaaliland reer Sheekh baa keena shidaalka ugu badan ee Soomaaliland la keeno reer Sheekh baa keena nimanka ka ganacsada waa reer Sheekh lacagta ugu badan baanu ka rabnaa lacagta ugu badan ayaanu ka rabnaa hasi kastaba ha ahaatee jaamacaddan ayaa wax weyn waxay ka tari doontaa baahiye kala duwan ay dadka reer Sheekh u qabeen jaamacad ay yeelato degmada Sheekh ee gobolka Saaxil waa Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ah ee Ariel magaalada Sheekh